uu ka cabanayo inay gaadho bushaaradan insha allahu tacaala. waxaanan hubaa qofka niyada bushaaradan marka ula yimaada inuu guulaysanaya insha allahu tacaala. bushaaradan waxaa warinaya Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaah, suubanaha ayuu ka warinaya sallallahu alayhi wa alihi wasallam. aad bay u fududahay, aad iyo aad bay u fududahay, laakiin cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr la doono ayuu waafajinaya insha allahu tacaala. wax culus maba ahaba, markaad gurigaaga ka baxayso ee aad shaqo tegayso unbaad leedahay basba. haddii aad la timaado intaa lagaa helo 3 arrimood baad helaysaa, 3 arrimood baad helaysaa oo rasuulku inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. mar kale aan ku celinayaa, khayrka dadka aan gaadhsiino, walaalaha kale aynu u sheergarayno oo aynu gaadhsiino insha allahu tacaala. waxyaabaha cajabta badan waxaa ka mid ah iminka dadka xumaanta iyo sharka iyo ku dhex faafiya halkan kama xishoodaan inay dadka ku yidhaahdaan gaadhsiiya oo markaa sheergareya ku yidhaahdaan. marka laakiin khayr iyo la faafinayo waxoogaaba waxaa markaasi ku soo galaysa inaad kelmadan sheergareeyaba aad ka yar xishoonayso, moogtahay si waxaad muxuu ahaa aad gaf ku jirto. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigeennuna nadiifiyo, camalkeennana ikhlaas uu ka dhigo. ilaahay uun baynu kaga raadinaynaa raalli ahaansho. bishaaradu waxay tahay, rasuulkeena moxamed calayhi الsalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi idaa kharaja almuslimu min beytihi, qofku marka uu gurigiisa ka baxo, qofka muslimkii markuu gurigiisa ka baxo, rag iyo dumar noocuu doono ha noqdo, oo uu yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila biاllaah. kalimaadka balaagda say u fudud yihiin waan macnaynaya insha allahu tacaala. idaa kharaja almuslimu, nacam, allahu akbar, ilaahay inoo hagaajiyo subxaanahu wa tacaala. wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam idaa kharaja arajulu min beytihi, ninkuu markuu gurigiisa ka baxo ama gabadhu ay gurigeega ka baxdo, qofkii uu shaqo tegaya ama waxbarashuu tegaya ama reerkiisu usoo shaqaysanaya ama caafimaad buu ku kallahaya, haddii uu gurigiisa ka baxuu yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ila billahu, 3 kelmadood 3daa uu yidhaahdo, yuqaalu lahu xiina idin, markaa waxaa lagu yidhaahdaa laqad hudiita wa kufiita wa wuqiita. 3 arrimood baa la siinaya. waxaa lagu odhanayaa waa lagu hanuuniyey, waa lagu kaafiyey, waa lagu ilaaliyey. allahu akbar. aan ku celiyo mar kale, idaa kharaja arajulu min beytihi, idaa kharaja arajulu min beytihi, qofku marka uu ka baxo gurigiisa oo faqaala uu yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allah, bismi illaah, magaca ilaahay kaalmaysiga aan kaalmaysanayo ayaan ku baxayaa, tawakaltu cala allah, ilaahayna waan tala saaranayaa, laa xawla walaa quwata, laa xawla xeeladna malihi, walaa quwata xoogna malihi aan shayaadiinta isaga difaaco kuwa insiga iyo jinkaba, ilaa billaah, ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala. intaa markuu yidhaahdo, yuqaalu lahu xiina idin, markaa waxaa lagu yidhaahdaa laqad hudiita, war waa lagu hanuuniye niyahow, wa kufiita, waa lagugu filaaday, alaysa allahu bikaafin cabdah, bala, ilaahay maanu addoonkiisa mid ku filan ahayn, wallaahi uu ku filan yahay. laqad kufiita, laqad hudiita, waa lagu hanuuniyey, wa kufiita, waa lagu kaafiyey, wa wuqiita, waa lagu dhowray. buqiita min shari shayaaiin اlinsi waاljin, waxaa lagaa dhowray shayaaiinta insiga iyo jinkaba waa lagaa dhowray. asxaabta dhammaantood akhyaarta ha isgaadhsiiyaan, kolley waad garanaysaane waynu isxasuusinaynaa uun, ducadan waynu wada garanaynaa, laakiin waxaa inagu adag inaynu aroortii markaynu baxayna aynu nidhaahno, walaalayaal aynu ka caado yeelanno, aynu nidhaahno, nafteenna aynu barno, wax kasta oo ina dhibaya
oo insiyo jinbale arki mayna insha allahu tacaala. sixir baanad arkayn haddii ilaahay idhaahdo, balaayo il baanad arkayn haddii ilaahay idhaahdo. waxaasoo dhan buu ilaahay kaa kaafinaya subxaanahu wa tacaala, oo uu kaa dhowraya, uu kaa ilaalinaya. xadiidka maxaa ku sii jira? rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, tanaxaa canhu shayطaan, shayطaanka ayaa ka fogaanaya. haddee gurigaagii baad ka baxday, ma garanaysaa? gurigaagii baad ka baxday, waad shaqo tegaysay, waxbarashaad doonanaysay, caafimaad baad tegaysay. mar alla markaad tiri bismi illaahi, ilaahay magaciisaan ku baxaya, tawakaltu cala allah, ilaahayna waan tala saartay. ilaaha koonka iska leh waan tala saartay, isagaan howlahaygoo dhan u dhiibtay. ictamadtu cala allahi jala jalaalu, ilaahay baan tala saartay jala jalaalu, ilaahay baan cuskanaya. bismi illaahi tawakaltu cala allah, laa xawla xeelad malihi aan wax isaga ilaaliyo, walaa quwata awoodna malihi ilaa bilah, ilahi mooyane subxana wa tacala. markuu qofku sidaa yidhaahdo, yuqaalu lahu xiinaidin, markaa waxaa lagu odhanayaa, laqad hudiita, waa lagu hanuuniyey, wa kufiita, waa lagu kaafiyey, wa wuqiita, waa lagu dhowray. sidaa isayaa lagu odhanayaa. markaasaa tanaxaa canhu shayطaanu, shayطaankuna uu ka fogaanaya. markaasaa shayطaan kale ayaa wuxuu ku odhanaya, shayطaan kale ay isla kulmayaano, markaasuu ku odhanaya, war sideed u lumin kartaa nin la hanuuniyey oo la kaafiyey oo la ilaaliyey? sideed u lumin kartaaba? maadaa lumimi kara? dayrkii ilaahay buu kaasi galayba. allahu akbar. kaasi ilaahay buu isku dhiibay jala jalaaluh. qofka ilaahay isku dhiiba ee ilaahay tala saarta, fahuwa xasbuh, ilaahay baa ku filan. qaala tacaala, waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh. qofka ilaahay tala saarta ee taladiisa ilaahay u dhiibta, ilaahay baa ku filan. fahuwa kaafiih, allahu yakfiihi jala jalaaluh. ilaahay baa ku filan oo kaafinaya. intaa akhyaarta iyo walaalaha muslimiinta meel kastay joogaanba gaadhsiiya. allah idin barakeeyo dhammaantiin, allah idin janneeyo. ilahay waxaan weydiisanaynaa fii hadihi الsaaca wa fii hadihi اleyla أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.